السلام عليكم. حقدني سامسونج جالاكسي J7 برايم. waa maxay sababta aan u dhahayo hagadanin? ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. sababta aan u dhahay hagadanin J7 Prime waxaan ku tusi doonaa meel uu ku xun yahay J7 Prime oo aadan ka maarmeyn. suulka ma ahan mid isla markiiba kuu furayo loogka. waa marka aad isticmaalayso J7 Prime. suulka ama faraha lagu xirto taleefanka wuxuu kuu sahlayaa in aad dhaqso ku furto taleefankaaga. kuma shaqeeyo suulka taleefan kasto, keliya wuxuu ku shaqeeyaa taleefanada loogu talagalay ka noqoshada iyo dhaweyd. kan geeska magacu bixiya bal asxaabey xagga commentiga noogu soo qora. waa cilada ugu weyn ee haysato J7 Prime. marmar maba shaqeynayaba ka noqoshada iyo dhaweyd. waxaa ku khasbanaanaysa in aad isticmaasho application. J7 Prime cilad ayaa ka haysato xagga batariga. kuma haynayo waqti dheer haddii aad isticmaalayso Wi-Fi ama dataga. xitaa haddii aadan isticmaalaynin, si tartiib ah ayuu kaaga dhammaanayaa. aniga keyga wuxuu ku dhamaa 7 ama 5. haddii aad haysato J7 Prime ama haddii aadan haysanin, xagga commentiga noogu soo qor meeqo ayuu ku dhamaa taleefankaaga. J7 Prime xagga geemka kuma fiicno, waayo halkii geem aad soo kacsato culays weyn ayuu u keenayaa taleefankaaga. iska day geemi, Messenger iyo YouTube haddii aad furto ayuu culays ku keenayaa. J7 Prime updatekiisa wuu u soo baxay laakiin kurti ma ahan, waxaana u dambeeyo versionka Oreo. update-ka ayaa wax badan ka bedeli doono inta aan horey u soo sheegnay.